xaqa waalidka uma baahna inaan wax badan ka iraahdo. Hooyo waa midda lugaysa kaba la'aan, qorraxdoo kulul, dhabarkana kugu sida, ayadoo doonaysa inay cunto kuu raadiso ama biyo kuu keento ama ay kuu raadiso waxaad ku hargashid. Hooyo waa midda duurka gasha oo xaabada dusha ku soo qaada, adigana horraadka kugu sida, ayadoo saas ku faraxsan oo ka walwalsan maanta waxaad cuni lahayd. Hooyo waa midda qorraxda fadhida ee bacadlaha fadhida, yaanyada iibisa, gambada iibisa, suuqa taagan si ay cunto kugu soo hesho. Hooyo waa midda awoodda u leh ayadoon awood lahayn oo nafaqa darro ka muuqata inay dusha kugu qaado. Waad u jeedaan hooyadan 2 carruuray dhashay ayay sinta ku sidaa, midna tafta ayuu haystaa. Ilaahayow hooyooyinkeenu dambi dhaafo u naxariiso. Hooyo walaalayaal, kuwa waxaa jira nasiib darrayaal ah oo hooyo ka oohiya. Qofkii hooyo ka oohiya, Ilaahay ha ka oohiyo. Qofkii hooyo ka oohiya ha ogaado in adduunka uu ku ooyin doono ama aakhiro Ilaahay kula xisaabtami doono. walaalayaal, hooyo waxay naga mudan tahay inaan u ducayno oo sujuudda ugu ducayno. bal isweydii walaal, goormaa kugu dambaysay oo aad hooyo u ducayso oo aad sujuudda ugu ducayso? walaal, soo ma ogid inaysan carabi badan kaaga baahnayn oo waxaa kugu filan inaad tidhaahdid allaahuma akfir liummii, allaahuma akfir liummii, allaahuma akfir liummii. ilaahow hooyaday u dambi dhaaf, ilaah hooyaday u dambi dhaaf. intaas haddaad ku celcelisid walaal, hooyo ducadaada way gaaraysaa hadday nooshahay iyo hadduu ilaahay nooshahay. waxaanu laga baahan yahay inaan maanta bilaawno. hadday awal buxmeed ama aan xiriirkeenna fiicnayn ama aan hooyo u ducan jirin, hadda waa inaan bilawnaa. ilaahow hooyo u dambi dhaaf, ilaahow hooyo u naxariiso, ilaahay ugu dambi dhaaf qof kasta oo muslim ah oo maqla maqdacan oo sii faafiya oo hooyo jacayl u qaba dartiis walaalihiisa kale sii gaarsa.